إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون war degdeg oo hadda naga soo gaaray magaalada Jigjiga ee maamulka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegay inuu dhintay Allah u naxariistay hobalkii weynaa Daawud Cali Masxaf oo ahaa fanaan Soomaaliyeed oo 50 sano u dambeysay ku soo jiray fanka Soomaalida fanaanka oo ku sugnaa dalka Itoobiya muddooyinkii u dambeeyay ayaa la sheegay inuu xanuunsanaa isla markaana ay soo wajaheen xanuunada macaanka iyo dhiikarka ina lillahi wa ina ilayhi raaji'uun Allah u naxariistay fanaanka ayaa waxa uu ka ambabaxay magaalada Muqdisho sanadkii hore oo ay isla yimaadeen fanaanka kale lagu magacaabo Xasan Aadan Samatar oo inta badan uu ah qofka heesaha u qaada Xasan Aadan u la xameeyo isla markaana u garaaca muusiga heesaha u qaada Xasan Aadan Samatar fanaankan ayaa waxa uu yahay tiir dhaxaad fanaaniinta hore ee Soomaaliyeed ee hobaladii qaranka Soomaaliyeed kuwii ugu dambeeyay isla markaana wuxuu ka mid ahaa kuwa farakutiriska ee sanooyinkii u dambeeyay fanka Soomaaliyeed dib u soo kabayay Allah u naxariistay waxa sanadkii hore magaalada Jigjiga ku geeriyooday fanaankii weynaa ama hobalkii weynaa Allah u naxariistay gabyaagii iyo abwaankii Soomaaliyeed Allah u naxariistay abwaan Sangub oo sidoo kale ku dhintay magaalada Jigjiga Daawud Cali Masxaf ayaa sidoo kale waxa uu ahaa qof aan marlama fanka Soomaaliyeed intii uu ku soo jiray mid si aad u kaabay isla markaana ay guul ka gaareen fanaaniintii uu ka mid ka ahaa Allah u naxariistay uu ka mid ahaa hobalka maanta ku dhintay magaalada Jigjiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda ka hadal isla markaana wuxuu ka tirsanaa fanaanka hadda geeriyooday wasaaradda warfaafinta gaar ahaan wuxuu ka mid ahaa kooxda hobalada Waabari oo uu ka mid ahaa sanooyinkii u dambeeyay ilaa iyo burburkii dalku ka dhacay ayuu fanaanku ku noolaa wadamada Yurub waxa kale oo magaalada Jigjiga iyo magaalada Djibouti caasimadda dalkaasi Djibouti oo ahaa mid degan geeridiisa ayaa dadka Soomaaliyeed si aad uga naxeen waxayna maanta tiirkii fanka Soomaaliyeed ka baxay qof si aad looga dhax yaqaan isla markaana caan ku ahaa kontii sano u dambeeyayna ku soo jiray taariikhda Allah u naxariistay Daawud Cali Masxaf ayaan lagu soo koobi karin qoraallo iyo maqallo kooban oo lagu baahiyay baraha bulshada waxaan dhammaan uga taxsiyadeynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay hobalkaasi maanta ka baxay sidoo kale waxaan idin soo gudbi doonaa taariikhdiisa iyo sidii uu ku soo galay fanka Soomaalida iyo meesha uu ku dhashay ayaan idin la wadaagi doonaa waxaan dhammaan uga taxsiyadeynaa dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo fanaan ayaan taxsi u diraynaa waxaan si gaar ah halkaan taxsi uga dirayaa wiilkiisa Maxamed Daawud Cali Masxaf oo uu ka dhintay aabihiis Allah u naxariistay saacadihii u dambeeyay ee maantay oo Jimco ah waxaan u duceynaynaa Ilaahay uga baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo maadaama uu dhintay maalin Jimco ah sidoo kalena dadka muslimiinta waxaan ugu codsanaynaa inay u duceeyaan qabriga inuu Ilaahay u waasiciyo insha Allah dambigiisana Ilaahay dhaafo qabrigana su'aasha loogu fududeeyo runtii ma ahan geeri lagu soo koobi karo maqaalo iyo ducooyin balse waa qof dadka Soomaaliyeed oo dhan ka wada baxay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu qabrigiisa u waasiciyo mar kale Ilaahayna dambigiisa dhaafo fanaanka ayaa waxa uu ahaa kuwa Soomaaliyeed kuwa ugu caansan sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa kuwooda halku tiriska ee fanaaniintii hore ka dambeeya fanaaniinta hadda joogta ayaa wuxuu ahaa qofka ugu daada weyn Xudaydi ayaa hadda qofka ugu weyn ee ka haray waxaana soo raacay Allah u naxariistay fanaanka maanta geeriyooday Daawud oo ahaa fanaankii ugu weynaa fanaaniinta Soomaaliyeed maantay runtii waxaan sidoo kale taxsi u diraynaa Xasan Aadan Samatar oo ah qofka inta badan heesaha uu qaada Xasan Aadan qofka u garaaca muusiga isla markaana Xasan ayaa la sheegay taariikhdii hore intii dawladii jirtay inuu watay xitaa asagoo xanuunsan isla markaana uu show ku soo qabanayeen dalkaasi Kuwait sidoo kalena fanaaniintii xilliga la socotay ayaa la sheegay inuu Xasan Aadan codsaday in lagu daro Daawud Cali Masxaf uusan la'aantiisna bixi karin haddii ay dhacdo inuu baxana uusan Xasan Aadan Samatar uusan meeshaasi ka heesi karin sababta ayuu Xasan Aadan ku sheegay inay si fiican uu muusiga u yaqaano isla markaana isaga iyo Daawud bay iskugu baxaan Xasan Aadan ayaa sidoo kale waxa uu dhowr mar sheegay Xasan Aadan ayaa dhowr mar wuxuu sheegay in hobalkani uu yahay qof fanka Soomaaliyeed muhiim ah sanadkii u dambeeyay 2019 markuu magaalada Muqdisho yimid Xasan Aadan oo soo booqday asagoo la socda madaxweynaha dalka Djibouti ayuu la socday fanaankani sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dalka Djibouti ee yimid magaalada Muqdisho fanaanka ayaa la sheegay inuu muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Jigjiga halkaan oo uu tagay xaalado qoys iyo kuwa caafimaad intaba waxaa hadda la sheegay inuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga Galangal Media waxay taxsi u diraysaa guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan hobalada Waabari
wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ha waasiciyo ayaan leenahay. Taariikhdiisa oo faahfaahsan dib ayaan kaga soo sheegi doonaa. Halkani waa Galaangal Media. Haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro.